odayaasha dhaqanka deegaanka gargaara bare ayaa ka hadlay colaad ka taagan deegaankaasi waxaana ay ka jawaabeen hadallo ka soo yeedhay mid ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal waxaana ay xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqeen joojinta dhulbeereed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ahay maanta anigu 72 jir baan ahay nin ka soo footeeyay baan ahay dawladdii aadan cadde ti Cabdirashiid ti Siyaad Barre ilaa haada nin food walba u soo taagnaa baan ahay ninka imika dhulkaygii oo lahowna adiguna sheekhaashiya daaroodka magareesha noo raacdo badlan mid ahayd hashi aan ku siiyay ajuuradu kolkay ku baadatay oo baad gabar kugu dhisay sidaasaas kaga dhigtay nin wadani iska dhigtay ma adhayn wadani annaga kugu abuuray laakiin soo waxaan noqonay abeesa koriyo adiga oo aaya waa suldaan baa leeyahay wuxuu ku hadlay kuwa iyaga waalwaalan kuma hadlaan wuxuu ku hadlay gadaburso waa dagaal wareeruhu ku halka yaal waxa leh murtidu waxa weeyaan baata halkan iyo wixii kale lama ilaa xariirad ilaa halka aan joogno war duulimaadka safka ballaaran soo qaaday ma ogolin dhulka beer haddii la beero ana beeran laakiin maanta ma beerayo sidii dad riciyad soo ahaan jiray la gumaysan jiray hadallada qof af Soomaali ku hadlaaba qareeniime Anfar iyo Oromi iyo waxaba aniga qareeniya warmuuna xishoonin idan hadduu dadka Soomaaliyeed u yiraahdo qabiilka reebel baa ayaan anagu isku dhowrahay sax bay ahaydba fidmada la soo qaaday ee dagaal ee ballaaran ma aha gargaar oo kaliya taa ilaa ma Cabdulqaadir iyo gargaar inta ka dhaxle waa 6 meelood waxa maanta loo sheegay in laba maaha oo la isku tilmaamayo ma jirto waxa weeyaan halka ay ka timid adduunka weerarka lagu soo qaaday ee dalkii Ciisaha lagu soo weeraray ayaan ognahay waa koonfur waxay ka timid halkii milyan ee bayl soo diray weeyaan hadda damac meel gaaban bad ka aragteen meel gaaban bay iska kiintustay waa arrinkaas dhulka Ciisu wax sida ku wareegay ma aha waxaad ku hantiyaysaa 1 milyan oo koonfur laga soo diray ma aha waxa kaloon ka hadlayaa waxay markasta ku dhawaaqdaan oo ku dhawaaqaan nimankaas madaxweynuhu waa kii dhulka la beerto madaxweynuhu kuma oran dhulka Ciisaha weerar oo boob adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida